ramadaantan waxaad ku arki doontaa goobtan ilmo in aan soo dejinayno tusaale ah 30 mawduuc oo gaar u ah anshaxa guryaheena oo aan ugu talagalnay maalin kasta inta aynu ku jirno bisha Ramadaan. Mawduucyadan ayaa ah kuwa ku saabsan anshaxa akhlaaqda ama qiyamka aynu leenahay. Waxaana ugu talagalnay in ay caruurta yaryar ka qayb qaataan soo gudbintiisa iyo soo jeedintiisaba. anshaxa 25aad waan ka tagnaa wixii aan na khusayn. bar ilmahaaga wanaagiisa iyo islaamnimadiisa waxay ku jirtaa inuu isaga tago waxaan khusayn. tusaale ahaan u sheeg in aanu dhexgelin waxaan isagu faa'iido iyo dani ugu jirin. ogow waxa tahay macalinka koowaad ee ilmahaagu leeyahay. waan ka tagnaa wixii aan khusayn. iftiimi mustaqbalka ilmahaaga. waxaad ku iftiimisaa baridda anshaxa wanaagsan ee diinteena iyo dhaqankeenaba si aad uga dhisto caqliga oo aad u koriso dadnimadiisa iyo damiirkiisaba.